Atarisha Bollywood-ka caanka ah superstar-na caan ah oo dhalay oo nikax la'aan dhalatay. Wax cusub ma ahan in dhacdooyinkan oo kale nolosha dhabta ah ka dhacaan, waana kuwo soo jireen ahaayeen oo xitaa dad Muslimiin ah ayay qabsatay. Marka inaan la yaabno ma ahan jilayaal gaalo oo taariikhdan ku dhacday. Atarisho daafaha caalamka caanka ah Bollywood-ka iyo koonfurta ka xamaalata ayaa asal ahaan nikax la'aan dhalatay. Weliba nikaaxa Hinduuga ah Atarishadan cid kale ma ahan waa Shruti Hassan. Shruti Hassan waxaa aabbo u ah superstar-ka Kamal Hassan oo reer Tamil ah, hooyadeedna waxaa lagu magacaabaa Sarika. Waxay gabadhan dhalatay 28 Janaayo sanadkii 1986. Haddeertan da'deedu waa 33 sano jir, balse arooska hooyadeed iyo aabbaheed ka hor ayay dhalatay. Sababtoo ah in xiriir wada noolaanshaha dhex martay Kamal Hassan iyo Sarika oo is jeclaayeen. Kadib Sarika uur ayay qaaday, waxayna dhashay Shruti Hassan 1986. 2 sano kadib markii Shruti dunida ku nooshahay ayay is guursadeen. Kamal iyo Sarika si rasmi ah oo shaaca ka qaadis ah guri u wada galeen, balse muddo 2 sano ah xiriirkooda hadal haynta iyo fadeexo ayaa daba socotay, maadaama Sarika gabar nikax la'aan ah dhashay. Marka Shruti Hassan waa atarishada keliya ee Indiya ka soo jeedo taasoo arooska hooyadeed iyo aabbaheed ka hor dhalatay.